ciidamada xasilinta caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan gobolka Banaadir howlgal lagu xaqiijinayo amniga kaas oo lagu hortagayo weerarada Al-Shabaab ciyaal weerarada iyo sidoo kale kooxaha dhaca ka geysta degmooyinka gobolka Banaadir. Howlgalkan oo si gaar ah loogu sameeyay xaafado ka tirsan degmooyinka Yaaqshiid, Kaaraan iyo Hilwa ayaa ciidamadu waxa ay ku baarayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxaana kormeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa sheegay in goobihii ay booqdeen ay ku arkeen ciidamada xasilinta oo wada howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga. Waxa uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ciidamada ugu mahadceliyay sida ay u sugayeen amniga caasimadda oo ay dhibaato ka geysan jireen Al-Shabaab ciyaal weero iyo sidoo kale kooxaha dhac geysan jiray waa sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa sheegay in duqa Muqdisho oo ka wakiil ah madaxda sare ee dowladda uu fariin mahadcelin ah u gaarsiiyay ciidamada booliska ee sida militariga u tababaran ee sugaya amniga Muqdisho. Tan iyo markii magaalada Muqdisho ay howlgalladan ay ka bilowdeen ciidamada booliska sida gaarka u tababaran waxaa soo hagaagay amniga magaalada Muqdisho iyadoo weli ay howlgalladu ka socdaan degmooyinka gobolka Banaadir. meelahaas aan tagnay ciidamo waxaan kula kulannay xarumahaas joogay iyo checkpointiyadaas intaba si gooniya ayuu gudoomiyaha gobolka ula hadlay oo uu uga mahad celinayo shaqada quruxda badan oo ay ku jiraan iyo midii bilihii la soo dhaafay intaba ay ku jireen oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir degan ay ku diirsadeen aad iyo aadna maaragtay caasimadan amnigeedii iyo dadka amnigoodii intuba wax weyn looga dareemay. waxaana nala joogay saraakiisha xukunta ciidamadaas oo howlgalka sida joogtada ugu jira ayaga oo maaragtay gudoomiyaha gobolka ka dhageystay dardaarankiisa iyo dhiirigelintiisa iyo inuu maaragtay asaga oo ka wakiila madaxdii qaranka iyo kuwii ciidamada intaba inuu hambalyadaas iyo mahadcelintaas uu soo gaarsiiyo. ciidankeenu xaqiiqatan aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa 24 saac shaqo ah ay ku jiraan ayaga oo iskaashanaya booliiska militariga iyo nabad sugidda intaba iyo maamulka degmooyinka. dadkan Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan gobolka Banaadir degan xaqiiqatan dadka ay ku jiifaan wax badan ka bedelay amnigooda waa ayagoo la kaashanaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayay haddana wax badan ka qabteen magaalada. shacabka Soomaaliyeedna waxaan rabaa gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan ciidamadu waa ciidamadiinii har iyo hameen adinkay idin soo jeedaan har iyo maalin iyo hameenkiina waxay u taagan yihiin dhaxanta maalintiina qorraxda ay u taagan yihiin inay adinka ammaankeena sugaan. sidaas darteed waxaa la ka rabaa inaad ciidamada warbixin soo siidiin meesha uu tuugu ku dhuumanayo meesha khawaarijku ku dhuumanayo meesha midka daroogeystaha ku dhuumanayo meesha midka raba inuu maaragta ammaankeena qalqal galiyo oo ku dhuumanayo adinka la ka rabaa warbixintaas inaad keentiin ayagana waxaa laga rabaa gacan bira inay ku qabtaan meeshaas maaragtay loo soo tilmaamo. marka darooga ma ogolin burcad ma ogolin ciyaal weerar ma ogolin khawaarij ma ogolin wax sideedaba magaaladan u dhibaaya dhib ku keenayo ummadda amnigeeda qalqalanayo ama hantidooda dhacaya ama maaragtay xorriyadooda ku ciyaaraya intaba ma ogolin.